war degdeg ah shirka golaha wadatashiga qaran oo Muqdisho ka furmaya ee madaxda maamul goboleedyada dalka uu soo gaaraya caasimadda Muqdisho Saciid Cabdilaahi Dani miyuu ka soo qayb gali doonaa shirkan maxay Sevilla Soomaaliya u qorshaysay in shirkan looga hadlo ajandaha diiradda lagu saari doono muuqaalkan ayaynu ku eegi doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed hadii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada ugu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino qaybta hoose ee commentigana aragtidaada kaga soo dhiibo ila muhiim ah oo aynu ka soo xignay madaxtooyada qaranka ayaa xaqiijinaya in shirka golaha wadatashiga qaran uu dhawaan ka furmi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka loo diray casuumaadda la xiriira ka soo qaybgalka shirkan waxaa la xaqiijiyay in dhammaan ay aqbaleen marka laga reebo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani kaas oo wili ka mayl adeegaya in uu ka soo qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran xilli kol hore uu ku dhawaaqay in wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gabi ahaanba ay hakiyeen Puntland sabab la xiriira khilaaf ka dhex jiray Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya xubnaha la xaqiijiyay in shirkan uu ka soo qayb gali doono shirkan golaha wadatashiga qaran waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran kaas oo in dhawaalaba ka biidiidsanaa imaanshiyaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sabab la xiriirta khilaafka adag ee kala dhaxeeya Villa Soomaaliya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa la sheegay in uu ku qancay ergeyntii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliye shub si la mid ahna sodogga madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran xogta muhiimka aynu helnaa ayaa xaqiijinaysa in shirkan Villa Soomaaliya ay qorshaysay in diiradda lagu saaro arrimaha doorashooyinka wuxuu u muuqan doonaa shirkan kii ugu dambeeyay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tibaaxaya in shirkan uu gabi ahaanba meesha uu ka saari doono taageerada iyo garab istaagga maamul goboleedyada kooban ee Villa Soomaaliya xilligan taageerada ay ka haysato sabab la xiriira in gabi ahaanba maamul goboleedyada qaarkood ay soo ilaadeen muddada xilheyntooda oo imikan ay ku joogaan waqti kale oo dheeri ah oo ay ku darsadeen Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug dhammaan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo u muuqda in doorasho loo dhaqaaqayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland xilli xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa waxaase la qorsheynayaa in dhawaan uu soo saaro guddi doorasho waxaase Jubbaland markan u muuqan doonta mid daaqada ka sii bixi doonta isla markaana gabi ahaanba jari doonta xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya waxaase loo sababeynayaa in ay tani ka dambeyn doonto dhinaca doorashada oo Jubbaland ay doonayaan inay u dhaqaaqaan Koonfur Galbeed iyo Galmudug dhinacooda markuu soo gabagabo shirka golaha wadatashiga qaran ayaase la qorsheynayaa inay u dhaqaaqaan waxay se xumeyn doontaa xiriirka Villa Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka wixii warar ay ku soo kordhay shirka golaha wadatashiga isha ku hay page-kayga halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa nabadgelyo